ucid u ah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دهور وناكسن دادكنا دغيسانيو كسو دوادا warka duhur idaacada Kismaayo codka Jubbaland qodobada warka duhur kuwada ugu waaweyn oo halkan idin kugu soo gudbin doona dhageystayaal waxa kamid ah baarlamaanka Puntland oo maanta ansixiyay xeer isbedel lagu sameeyay oo dhawaan loo soo gudbiyay dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shil maanta ka dhacay deegaanada Soomaaliland wariyaal lagu xirxiray maanta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan muwaadiniin Soomaaliyeed oo in muddo ah lagu laayahay dalka Koonfur Afrika kabatole ku nool Kismaayo oo dhalinyarada shaqo la'aanta haysa ka cabanaya ku dhiirigeliyay inay qabtaan shaqooyinka hoose guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal oo guddoon cusub maanta dooranaya. akhbaraadka dibadda kuwada ugu waaweyn waxa ka mid ah diyaarad military oo ku burburtay Philippines iyo qasaare ka dhashay diyaaradaas. waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan. markale isku soo noqod wanaagsan dadkana dhageysanayo waa axad taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 4 bisha 7 ee sanadka 2020 qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhur ugu waaweynaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo intaasi ka faahfaahsan duhurnimadana waxaa idin waramaya anigoo Cabdilmajiid Cabbaas aadan fantastic. haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ee warka duhur baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa ansixiyay xeer isbedel lagu sameeyay oo loo soo gudbiyay. Amaal Cawil hayno faahfaahiso. magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaa waxaa maanta kulan ku yeeshay golaha wakiilada maamulkaasi iyagoo ansixiyay mooshin ay guddoonka golaha u soo gudbiyeen. mooshinka oo ka yimid dhinaca guddoonka ayaa ahaa in guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada ay xasaanada xildhibaannimo ku waayi karaan codadka 44 xildhibaan oo ka mid ah 66 wakiil ee Puntland si la mid ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland. ansixinta xeerkani ayaa waxaa la sheegay inay meesha ka saarayso guddoomiyaasha wakiilada Puntland oo ay badneed in mooshinno lagu rido iyaga oo horey loogu ridi karay 34 mudane oo ahayd tiro yar. sidoo kale ansixinta xeerkani ayaa ku soo aaday xilli golaha wakiilada Puntland ay horey u rideen guddoomiyihii hore ee Cabdixakiin Dhoobadaareed sidoo kalena ay xasaanada xildhibaannimo ay ka xayuubiyeen 8 mudane. dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil maanta ka dhacay deegaanada Soomaaliland. Raaxa Maxamed hayno faahfaahiso. shil sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu saakay ka dhacay duleedka degmada Gabiley ee Maroodijeex ee Soomaaliland waxaana ka soo baxaya faahfaahino dheeraad ah shilkaas dhacay. shilkan ayaa waxa uu ka dambeeyay ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari siday dad shacab ah iyo gaari ku socday xawaare sare xilli ay labada gaari ay marayeen laamiga duleedka degmada Gabiley. inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay shilka gaariga halka 8 qof oo kalena ay soo gaareen dhaawacyo kuwaasi oo si degdeg ah loogula cararay isbitaalada degmada Gabiley si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo. goobta uu shilkaasi ka dhacay ayaa waxaa gaaray dadweyne fara badan iyo mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo gurmad xoogan u sameeyay dadkii waxyeelada ka soo gaaray oo dhammaantood shacab ahaa. si kastaba ha ahaatee deegaano iyo degmooyin ka tirsan Soomaaliland ayaa waxa uu horay sidan oo kale uga dhacay shilal khasaare kala duwan oo ay geystaan khasaare dhimasho iyo dhaawac waxaana inta badan loo sababeeyaa shilalka gaadiidka oo xawaare sare lagu wado.
magaalada beledweyne ee xarunta maamulka gobolka hiiraan waxaa markaa laga soo warinaya kadib dagaal halkaasi ka dhacay in markaa hirshabeellada halkaasi ku sugan ee uu markaa hogaanka xilligan u hayay yuusuf axmed hagar dabageed lasoo warinayo in wariyaal lagu xirxiray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. haddaba ujeedada wariyaashaasi loo xiray iyo waxyaabaha kale waxaa warkan isha soo mariyay oo inoo faahfaahinaya Kamaal Maxamed Axmed Keynaan. ciidamada ammaanka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay maanta xireen wariye xuseen cabdi jimcaale diini oo kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne. wariyaha oo ah wakiil wareedka tv-ga afka soomaaliga ku baxay magaalada beledweyne ayaa wararka la helay waxa ay sheegayaan in amarka lagu xiray ay bixiyeen madaxda sare ee hirshabeelle ee ku sugan magaalada beledweyne. xogaha la helay ayaa sheegaya in sababaha loo xiray wariye xuseen cabdi jimcaale diini ay tahay warbixin uu baahiyey shalay oo ay ka hadlayeen dhalinyaro kamid ah golaha la magac baxay kacdoonka gobolka hiiraan kuwaasi oo ka wasiiro ka tirsan hirshabeelle oo shalay beledweyne gaaray. qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne ayaa sheegay in aad ay uga xun yihiin xariga waxaana kusoo aadayaa xilli xalay ilaa iyo maanta magaalada beledweyne laga dareemayay xiisa dagaal u dhexaysa ciidamada ammaanka iyo kuwa uu hogaamiyo jenaraal xuud oo si weyn uga soo horjeeda maamulka hirshabeelle. muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa in muddo markaa lagu leeyahay dalka Koonfur Afrika xilli ay markaa badanayaan tacadiyada loo geysto dhalinyarada Soomaaliyeed ee halka ganacsiyada kala duwan ku leh. Nuur Bashiir Cali hayno faahfaahin. muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdullaahi Bootaan Saruurow oo ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa muddo 3 cisho ah lagu leeyahay nolol iyo geeri. mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in markii cid ugu wardambeysay uu Cabdullaahi isaga oo gaari alaab ku wada uu ka baxay halka uu deganaa ee British isagoo ku sii jeeday Thabasimbi oo 464 kilomitir u jirta British. Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa haatan dadaal u galay sidii lagu heli lahaa muwaadinka Soomaaliyeed ee la laayahay iyagoo ku wargeliyay saldhigyada booliska magaalooyinka dalkaasi Koonfur Afrika. guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa maanta la soo warinaya in ay dooranayaan guddoon cusub. Maxamuud Saciid Axmed hayno fadheereeyo. guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa maanta dooranaya guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa. xilka guddoomiyaha waxaa u sharaxan 5 xubnood halka ku-xigeenkiisana ay ku lowlamayaan 2 kale. codaynta ayaa u dhacaysa qarsoodi waxaana lagu casumay marti kala duwan sida qaar ka mid ah safiirada ku sugan Muqdisho, xubno ka tirsan beesha caalamka, xukuumadda federaalka iyo korjoogto kale oo lagu casumay sida uu sheegay guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee guddigaas. muuse geele yuusuf guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa tilmaamay marka la doorto guddoomiye iyo ku-xigeen in guddigooda uu fadhi degdeg ah ka yeelanayo sidii loo bilaabi lahaa howlaha doorashooyinka dalka. musharaxa u tartamaya guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa laga doonayaa inuu buuxiyo shuruudaha la hordhigay, inuu hogaamin karo doorashada dalka, inuu aqoon u leeyahay mas-uuliyadda hawshan, waxaana buuxiya 5 ruux oo guddoomiyaha u tartamaya iyo 2 kale oo ku-xigeenka ah, ayuu yiri guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee guddiga. toddobaadkan waxaa dhanka kale la dooranayaa guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedyada iyada oo la raacayo shuruucda loo dejiyay habraaca doorashada dalka. halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda Kismaayo codka Jubbaland. goordhow waxaa inoo soo socda qodobka dibadda oo aad u xiiso badan, balse inta aan u guda galin waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha ee warka duhur iyo Cabdirasaaq hayno soo koobo. aad baad wanaagsan tahay. fantastic. dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka aan ku bilaabay. xulka kubadda cagta ee Argentina ayaa saaka garaaca xulka Ecuador kulan ka tirsan wareegga ruuxa dhamaadka ee tartanka kaabka America kaabka. qaybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay Ebery hal iyadoo inta badan ay dardar ay muujinayeen kooxda kubadda cagta ama xulka kubadda cagta ee Argentina iyadoo inta badan xidiga Lionel Messi oo qayb liwaax leh ka qaatay goolasha ay dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Argentina. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 3-0 halka ay Argentina iminka ay u gudubtay
wareega u dambeeya iyadoona ay la dheeli doonto xulka Colombia. xubinta ciyaaraha warku waa naga intaan dib idinku celiyo qeybaha warka ka dhiman. aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdirasaaq oo inoo soo koobaya xubinta ciyaaraha ee warka duhur. markana haddii aynu fiirino faahfaahinta qodobka dibadda, diyaarad xamuul oo nooceedu ahaa C-130 ayaa saakayto markaa ku burburtay koonfurta dalka Philippine. ugu yaraana 85 askari ayaa mar saarnaa diyaaradaasi oo kusii jeeday jasiiradda lagu magacaabo Jolo Island oo ah gobolka Sulu. warar hordhacna waxa ay markaasi sheegayaan in ugu yaraan 40 askari oo markaa laga soo badbaadiyay burburka diyaaradda, iyadoo ilaa iyo haatan la xaqiijiyay geerida 17 askari oo wadankaasi u dhashay. diyaaradda waxa ay ku burburtay tuulo lagu magacaabo Bangkal ee degmada Batikul lagu magacaabo. ila wareedina ayaa sheegaya in duuliyihii diyaaradda uu sheegay dhabaha ay diyaaraddu cagaha dhigteen runwayga in ay markaa u bixi waayeen. taliyaha guud ee militariga dalka Philippines General Critico Sopechena ayaa waxa uu markaasi sheegay inay socdaan baaritaanada waxa sababay shilkaasi, inkastoo aan weli si rasmi ah markaa loo cadeyn. ciidanka la socday diyaaradda burburtay waxa ay u socdeen howlgal ay kula dagaalami lahaayeen kooxda Abu Sayyafa ee u halgamay in ay madax banaani u helaan gobolka Sulu oo dad muslimiin ah in badan ay degan yihiin halkaasi. warkii duhur oo aad kala socoteen idaacadda Kismaayo codka Jubbaland duhurnimadan waa naga intaa tan iyo kulankayga dambe. nabadgelyo.